magaalada yar ee dhan walba ka go'doonsan sanad ka badan waxa uu dagaal qaraar ku dhex marayaa laba awoodood aan isku dhigmin. awoodda koowaad waa ciidanka gumaystaha Israa'iil, waa ciidan nidaamsan oo ay ku baxdo sanadkii miisaaniyad lagu qiyaasay 23 bilyan oo dollar, laguna daray taageerada aan kala joogsiga lahayn ee Maraykanka iyo reer galbeedka. ciidamada sida rasmiga ah ugu diiwaan gashan gumaystaha tiradooda waa 170,000 oo askari iyo 500,000 oo kuwa kaydka ah. sidoo kale ciidanka gumaystaha waxay ku hubeysan yihiin 490 diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan, lagu daray 2,200 oo isugu jira taangiyada dagaalka, beebayaasha, gawaarida gaashaaman, madaafiicda goobta iyo nidaamyada sirdoonka macmalka ah. awoodda labaad waa kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. waxay ka kooban yihiin 10,000 oo dagaalyahano oo aan nidaamsanayn. waxay ku hubeysan yihiin hub qadiim ah, fudud, badankoodna lagu farsameeyey gudaha Gaza. ma haystaan taangiyo, beebayaal iyo gawaarida gaashaaman. sidoo kale ma haystaan diyaarado dagaal iyo nidaamyada sirdoonka macmalka ah. laakiin natiijada ka soo baxday dagaalka u dhexeeya labadan daraf waxay noqotay in ciidanka gumaystaha ee miisaaniyadda intaas le ku baxdo, hubkaas casriga ahna haysta, ayna taageeraan Maraykanka iyo reer galbeedka, uu ku guuldaraystay in uu ka adkaado ciidanka muqaawamada ka tirada yar ee aanan haysan hubka casriga ah. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, maxaa dhacay? sidee ayayse muqaawamadu ugu takhalluseen farqiga u dhexeeya iyaga iyo ciidanka gumaystaha ee dhinaca tirada iyo hubka? maxay tahay sirta ka dambeysa in sanad ka badan ay adkaystaan, welina ay sii dagaalamayaan? si ay u soo yareeyaan farqiga dhinaca tirada ciidanka iyo hubka, xoogaga muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa adeegsaday taatiig loo yaqaano ku dhufo oo ka dhaqaaq. waana taatiig ay inta badan adeegsadaan kooxaha muqaawamada iyo kuwa aan nidaamsanayn ee awood ahaan aad uga hooseeya cadowga ay la dagaalamayaan. inta badan xoogaga muqaawamadu waxay aad uga faa'iidaystaan cimilada iyo juqraafiga dhulka lagu dagaalamayo, iyagoo adeegsanaya hubka fudud ee qadiimka ah ee aan qarashka badan ugu fadhin, balse saamayntiisa aan ka khasaare yarayn hubka casriga ah. sidoo kale fikradda fudud ee ay adeegsadaan waa si caqliyaysan u qorshay, kadibna ka yaabso cadowga. hubka koowaad waa gantaalka garbaha laga tuuro ee Al-Yaasiin. waa hubka ugu caansan uguna saamaynta badan muqaawamada tan iyo wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka marinka Gaza. gantaalka Al-Yaasiin waa sida qoriga RPG, waxaa laga ridaa garbaha. marka la rido wuxuu maraa 2 marxaladood. gantaalka Al-Yaasiin ayaana ka kooban 2 qaybood. qaybta koowaad waa dalooliso. shaqadeedu waa inay dalooliso jismiga adag ee ku dahaaran taangiga. qaybta labaadna waxaa loogu talagalay in ay ku dhex qaraxdo gudaha taangiga, waana qaybta sababta in taangiga ama gaariga gaashaaman gebigiis uu gubto, ciidamada gudihiisa ku jirana ay noqdaan wax dhintay iyo dhaawac. gantaalka Al-Yaasiin iyo midka Ruushka uu farsameeyey ee RPG-7 ayaa lagu sifeeyaa mid ka mid ah hubka ugu muhiimsan dagaalada casriga ah. sababtuna waa inuu yahay hub fudud, si sugan u abbaara bartilmaameedkiisa, qiimaha uu ku fadhiyana waa mid raqiis ah. halkiisa xabo waxaa lagu qiyaasaa 500 ilaa 2,000 oo dollar. ku darso wuxuu awood u leeyahay in uu burburiyo taangiga uu gumaystaha ku faano ee Markafa, kaasoo halkiisa xabo uu ku fadhiyo qiimo dhan 6 milyan oo dollar. gantaalkan wuxuu muqaawamada Falastiiniyiinta aad u anfacay markii ciidamada gumaystaha ay bilaabeen in ay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan marinka Gaza. caadiyan muqaawamadu waxay hubkan adeegsadaan iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradooda ku dagaalanka tanalada iyo cimilada ku hareeraysan, waxaana iyagoo aad moodo sidii ruuxaan oo kale ay uga soo baxaan godadka, kadibna waxay la beegsadaan weliba masaafo aad u dhow taangiyada iyo gawaarida gaashaaman ee ciidanka gumaystaha. waxaana farsamadan ay u sahashay inay ka fogaadaan nidaamka ka hortaga gantaalada ee ku xiran qaybta sare ee taangiga, kaasoo loo yaqaano nidaamka Torofi. hubka labaad waa miinooyinka. badankooda waxaa lagu farsameeyey gudaha marinka Gaza. waxay ka kooban yihiin maadooyin sameeya qarax aad u daran, masaamiir iyo bira jajaban. miinooyinkan waxaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan. qaarkood waxaa loo naqshadeeyey in lagu fuliyo weerarada gaadmada ah. waxaa lagu rakibaa dhinacyada wadooyinka si hakad loo geliyo gurmadka ay dalbadaan ciidamada gumaystaha marka ay la kulmaan weerar kadis ah. qaarkood waxaa lagu rakibaa dhismooyinka ay isaga qaxeen shacabka Gaza ee badanaa ay bartilmaameedsadaan ciidanka gumaystaha si ay u dumiyaan. waxa markii ay gudaha u galaan dhismooyinkaasi si ay u burburiyaan loo taabtaa rumuudka, sidaas ayaana lagu halaagaa. sidoo kale waxaa jira nuuc loo yaqaano shuwaad, taasoo sidii xanjada loogu dhejiyo dhinacyada taangiga. daqiiqado kadibna way qaraxdaa, taangigana wuxuu u dhalaalaa sidii koombada oo kale. waxaa kaloo laga soo ridi karaa diyaaradaha droniska yaryar. miinooyinkan qiimo ahaan waa raqiis, laakiin saameyntooda aad ay u daran tahay.
badanaa xoogaga alkhasaam marka ay fuliyaan howlgal dhabagal ah kow waxay daraaseeyaan waddada ay u badan tahay in ay soo maraan ciidamada iyo taangiyada gumaystaha. sidoo kale waxay sii odorosaan xaafadaha ama deegaanka ay doonayaan in ay galaan oo ay howlgal ka fuliyaan. kadibna waxay miinooyin ku beeraan waddada muhiimka ah ee ay u badan tahay in ay soo mari doonaan, waxaana marka ay halkaas soo gaaraan oo ay dhexbartanka marayaan u taabtaan rumuudka iyagoo dhinac walba uga qarxiya miinooyinkii halkaas ku asnaa. inta ka badbaaday qaraxa koowaad ayna dirsadaan qayladhaan iyo gurmad lala soo gaaro, iyagana waxaa miinooyin loogu sii diyaariyaa waddooyinka qardajaaxa ah ee ay isdhahaan mara waa ammaan. sidaas ayna muqaawamadu uga takhallusaan tiro badan oo ciidanka gumaystaha ka tirsan iyo taangiyadooda. hubka saddexaad waa qoriga diiradda leh ee loo yaqaano guul. qoryaha diiradda leh waxay qoryaha kale ee caadiga ah uga duwan yihiin waa in rasaastooda ay si sugan ugu dhacdo bartilmaameedka. meel fog ayay wax ka toogan karaan, si fududna waa loo isticmaali karaa. iyo tan ugu muhiimsan oo ah in ay leeyihiin teleskoob shiishyahanka u sahlaya in uu si nadiif ah u arko bartilmaameedkiisa ka hor inta uusan toogan bartilmaameedka. dagaalka magaalooyinka iyo xaafadaha, qoryaha diiradda leh ee lagu farsameeyey gudaha sida qoriga guul wuxuu sabab u noqdaa inuu wax badan ka bedelo qaabka uu dagaalka u socdo. qoriga guul ayaa wax ka toogan kara masaafo dhan 2 kilomitir. rasaasta uu qaadan karana waa nuuca 14.5 milimitir, taasoo ka dhigaysa inuu yahay mid ka awood badan kan uu ruushka farsameeyey ee Dragunov ama ay Soomaalida u taqaano shamshuutar. marka ciidamada Israa'iil ay bilaabeen in ay dhinaca dhulka ka galaan Gaza, dhismooyinka iyo waddooyinka cariiriga ah ee magaalada ayaa taangiyada iyo gawaarida gaashaaman ee gumaystaha ka hor istaagay in ay horumar sameeyaan gudahana u galaan marinka. markii ciidamadan ay ka soo degeen taangiyada ayna fuuleen dabaqyada dhaadheer, waxay bartilmaameed sahlan u noqdeen shiishyahanada muqaawamada, gaar ahaan kuwa alkhasaam ee ku hubaysan qoriga guul. hubka afraad waa hoobiyaha. si fudud, hoobiyaha waa qori fudud, si fudud ayaa loo qaadi karaa looguna diyaarin karaa goobaha dagaalka. weliba hal qof ayaa hawshaas qaban kara. inta badanna waxaa loo adeegsadaa in lagu jebiyo difaacyada ciidamada. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa in lagu duqeeyo saldhigyada cadowga, wuxuuna sababaa in khasaare xooggan uu gaarsiiyo cadowga. markii ugu horreysay ee qoriga hoobiyaha la adeegsado waxay ahayd 1453. waxaa adeegsaday ciidamadii cusmaaniyiinta. tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyeyna hoobiyaha wuxuu ahaa hub muhiim ah oo aan looga maarmin dagaalada. dabcan hoobiyaha ku awood maahan marka lala barbardhigo madfaca hawdsar iyo madaafiicda kale ee ay haystaan ciidamada gumaystaha. haddana sidaas ay tahay, dagaalada magaalooyinka iyo xaafadaha dhexdooda ku dhex mara ciidamada, hoobiyaha wuxuu ka qaataa kaalin weyn, khasaare xooggan ayuuna gaarsiiyaa cadowga. sifooyinka kale ee uu la gaarka yahay hoobiyaha ayaa ah in uu dusha sare uga yimaado bartilmaameedka cadowga, taasoo u sahlaysa in uu dhib xooggan gaarsiiyo ciidamada gumaystaha iyo qalabkooda. hubka shanaad ee wax badan ka bedelay dagaalka Gaza waa gantaalka Sam 18. waa gantaal dhulka laga gano, looguna talagalay in lagu bartilmaameedsado diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa jooga hoose ku duula. waana gantaal fudud oo uu hal askari ku qaadi karo garbihiisa. markii ugu horreysay ee uu soo shaacbaxo gantaalkan waxay ahayd 80meeyadii. halkiisa xabo wuxuu ku fadhiyaa ilaa $10,000, laakiin wuxuu awoodaa in uu dhulka soo dhigo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa darooniska ee ku fadhiya malaayiinta dollar. gantaalkan waa mid ka mid ah nidaamyada difaaca hawada. waa midka diyaaradaha gumaystaha u diiday inay si xorriyad leh u dulheehaabaan hawada marinka Gaza. aragtidaada ka dhiibo, waa kee hubka ugu muhiimsan ee ay muqaawamada haystaan 5taas hub ee aan ka soo hadalnay? aragtidaada nagula wadaag qaybta kommentiga. mahadsanidin.